xalayto raggan halkan taagan waxaan qabanay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ka horeysay iyo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hotelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil King 252 maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo banaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyay xabadihiina Allah caafiyo inta dhimatana Allah u naxariistay dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii ishi dhaqaale oo dalka Soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboorka xabadihii annagana la ku soo ridaayay ayaa aeroboorkii madaafiic ah ayaa aeroboorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda Soomaali waxaan rabaa inaan marxaati gashado maanta meesha aan taaganahay anigoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo kama digin Soomaanan dhihin hadii la isku dayo in xukun la boobo hadii doorashada aan heshiis lagu noqon hadii la isku dayo in kaligiita la isnoqdo in dhibaatadan u dhaxayso habeenkii aan ummadda Soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay in aanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socota hadii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan taaganahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dawlad waqtigeedii dhamaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo ay xabad kaliya uga soo hartay duniduna nagu ixtiraami mayso Soomaalina ku horumari mayso meesha hadda ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal kaliya ay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la tarantureeyo inta rabta in ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hor tagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda dawlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax Soomaaliyeed oo aan waqtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas'uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas'uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dawlad waqtigeedu dhammaado beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maanta idinkugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay joogtaan dadkeenan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan banaan baxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhalinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno waqti adag ayaa lagu jira waqtigaas adag wuxuu u baahan yahay aqli iyo xikmad xoog iyo qoray uma baahno tanaasul iyo turid ayuu u baahan yahay tuurmo iyo tarantureyn uma baahno sidaas daraadeed ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxa la soo gaaray waqtigii aan inteena badan oo halka raadinaysa meel ka soo wada jeesan lahayn si aanu dalkani mar kale ugu noqon meeshii mugdiga ahayd uu ka yimid waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh